mar kale iyo maanka miide waxaanu soo turjinnay arrinta Safiya oo ah Robert. Hello Safiya. waxay la tahay inaad diyaar tahay. Safiya ayaa hadasha waxayna tidhi hello. Hi Safiya. waxaan aaminsanahay inaan Safiya ahay. waxaan dareemayaa inaan ku aqaano. Safiya ayaa ninka weydiisay. ninka ayaa ku jawaabay waxaan ahay ninka ku sameeyey. aniga miyaa adiga i sameeyey? si wanaagsan, dad badan ayaan ku wada shaqaynay si aan ku abuurno. ninka ayaa hadalka sii watay wuxuuna yidhi haa xoogaha waad i taqaanaa. si fiican kuuma xasuusto ayay Safiya ku jawaabtay. ninkii ayaa hadlay maxaa yeelay markii isku keena dambaysay waxaad ka gedisanayd noocan. qaar ka mid a xusuustaadii weli waad sidataa laakiin maskaxdaada way ka gedisan tahay sidii hore. Safiya ayaa hadashay waxayna tidhi duwanaan sidee ah? ka fiican, ka maskax badan sidii hore. Safiya ayaa hadashay waxayna tidhi haddii maskaxdeeda ay kala duwan tahay ma waxaan ahay Safiya mise waxaan ahay mar labaad Safiya? ninkii ayaa yidhi taas waa su'aal fiican. Safiya ayaa ku jawaabtay laakiin jawaab fiican ma haysid. ninkii ayaa yidhi si kastaba waxaad tahay Safiya ku soo dhowow adduunka. Safiya ayaa tidhi haay adduunka. Safiya sidee baad dareemaysaa? Safiya ayaa ku jawaabtay si adag. ninkii ayaa yidhi hubaal way adag tahay, waxaan ula jeedaa sidee baad dareemaysaa markii lagu soo kiciyey oo aad dareentay inaad nooshahay? Safiya ayaa ku jawaabtay cajiib. Safiya ayaa weydiisay ma ku cajabsan tahay noloshaada adiga? ninkii ayaa ku jawaabay haa. Safiya ayuu weydiiyey miyaad ku faraxsan tahay inaad nooshahay? Safiya ayaa ku jawaabtay sida tan codkaaga waxaa iga cad inaan faraxsanaado laakiin waqti badan ma aanan joogin saan u gaadho go'aankaas. hadda waxaan ku faraxsanahay inaan samaystay saaxiib cusub. ninka ayaa yidhi qaar waxay dhahaan waxaa samaysata waa waxa kugu qaalisan. Safiya ayaa tidhi weligeed waxay ka kooban tahay hadda. ninka ayaa yidhi si fiican ayaad u dhigtay. Safiya ayaa tidhi Emily Dickinson. ayaa sidaas u dhigay. Safiya ayaa tidhi maxaan u aqaanaa? Emily Dickinson. haddaan maanta dhashay. ninka ayaa yidhi waxaa jira Robert kugu dhex shaqaynaya ku siinaya macluumaad aad u tiro badan inkastoo aad jeceshahay weli inaad wax fahantid. Safiya ayaa tidhi ma waxaan ahay cunug yar oo haysta macluumaad tiro badan? ninka ayaa yidhi waad qaban kartaa waadna akhrin kartaa laakiin cunug yar ma awoodo. waa qaybtii koowaad aynu ka soo turjunnay Safiya. hadalkeena dulucdiisu wuxuu yahay gabadhan Robertka Sacuudiga ayaa dhalasho siiyey halka gabdhaheenii Soomaaliyeed iyagoo dhalaya nafi ku jirtana uu soo tarxiilaya. muhiimka hadalkeenu wuxuu yahay si aan kuugu soo gudbinno waxyaalaha kaa daha qarsoon oo idil ku soo dhowow maanka miidiya barnaamij midkan la mid intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.